haye magacaygu waa Ana waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maxaa ku dhacaya dadka aan muslimiinta ahayn kuwaasoo islaamka aan waxba ka garanayn maxaa ku dhici doona haddii uu dhaho qof aan muslim ahayn mucjisaadka Ciisa waxaa ka weyn kuwii Muxammad la yimid walaasha laba su'aal ayayna weydiisay tan koowaad waa maxay masiirka qofka aan muslimka ahayn ee islaamka aan waxba ka aqoon weligiiba tan labaad haddii uu dhaho qof aan muslim ahayn mucjisaadka uu la yimid Ciisa calayhi salaam ayada ayaa ka weyn badantii Muxammad la yimid maxaa dhici doona marka loo fiirsho nuqdada koowaad haddii qof aan muslimayn uu yimaado ina sheego inuusan islaamka waxba ka garanaynin arintaas waa arin adag inay maanta dhacdo caalamka cilmiga iyo tiknoolajiyada laga yaabay su'aashaas haduu ay weydiin lahay muddo laga joogo 50 sano suurtagal ayay ahaa lahayd maanta waa casriga cilmiga iyo tiknoolajiyada qaasatan wasaa'isha iclaamku waxa ay faafinaysaa faham qaldan oo ay ka faafinayso islaamka adigoo islaamka ayaad u banbaxaysaa laga yaabay inuu yahay islaam qaldan laga yaabay inuu yahay islaam beenbeena kaasoo muslimiintu ay yihiin argagaxiso muslimiintu ay yihiin usuuli islaamku waa diin dil haweeneyda waa uu ihaanaysanaya oo adoomaysanaya laga yaabay inay islaamka sidaas baranayaan laakiin waa islaam qalad ah hadda maxaa ku dhici doona dadka aan muslimiinta ahayn ee tacaaliimta islaamka ee saxda ah aan baranin aniga waxaan dareemayaa hadii qof aan muslim ahayn oo maqlo ama shakhsi kale iclaamka uu wax ka maqlo waxa ku waajiba arintaas inuu ka soo qaadan arin sax ah quraanka alle wuxuu ku leeyahay suuratul xujuraat suurada raqamkeedu yahay 49 aayada 6 markay ku soo gaaraysa macluumo waxa kugu waajiba inaad iska hubido inta aadan qof kale u sii marin markay macluumo ku soo gaarto waxa muhiim ah inaad iska hubido in qofka ku sheegaya uu saxsan yahay ama qaldan yahay ama se marka loo fiirsho risaalada islaamka hadii qof aan muslim ahayn uu ku nool yahay jasiirad tusaale ahaan ama Timbuktu ama makaan aan waxba ka ogeyn macrifada islaamka ugu horeen qof kasto muslim waajibkiisu waxa weeye inuu risaalada diinta islaamka gaarsiiyo qofka aan muslimka ahayn iyadoo aan la fiirinaynin gaarsiintiisa risaalada marka ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay suuratu fussilat suurada 49aad aayada 53 dhawaan waxaan tusi doonaa calaamadaheena makaan meesha ugu fog ilaa uu ka cadaado arinkaas inuu yahay xaq Ilaahay wuxuu leeyahay inuu aayadaha iyo calaamadaha tusi doono qof kasta oo basharka kamida intuu sadhiman ka hor dib ayaa laga tusin doonaa aayadihiisa makaan meesha ugu fog ilaa uu ka cadaado inuu arinkaas yahay xaq Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ballan qaaday mas'uuliyadda gaarsiinta risaaladan nafsad ahaantiisa dhammaan basharka ha ahaado mid ka dhashay qoys muslim ama midaan muslim ahayn ama dhul muslim ama dhul aan muslim ahayn Ilaahay uu gaarsiin doonaa risaaladan mid kasto kamida basharka sida darteed sababta markii ay jirtay halka cilmi baaris xilliyadii kontomeeyada ee laba qabiilood haddana labadaas qabiilada Kabauko iyo dadkii aslan badagi jiray Australia labadaas qabiilood xadaarada cusub ma gaarin ilaa 1950kii markii baarayaashu ay u tageen oo ay isku dayeen inay noloshooda iyo qaabkeeda ogaadaan qoomkaasi waxay rumeysnaayeen hal ilaah inuu alla keligii yahay oo waajib tahay asaga la caabudo أحدنا أوصل دلين وين أسجود جرين عبادة ربنا شيء كستا وحو أها إسلام لكن سمجع إسلام ما إسنه سنين مركي أوصل جرين سامين لنك خارج جاء إنسان كقدعة السوق وحو قضوع يا إرادة الله سبحانه وتعالى سيدرت الحبيب كان الرسول كمحمد وحو ليه صلى الله عليه وسلم مجر قفل دلا إلا وحلو دلا فطرة قف كستو دلا وحلو دلا دين تفطرة وحال دلا يا سجو مسلمة وحو ليه يا حبيب كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عنق كستو دلا وحال دلا سجو مسلم عنه سوا قفك إرادة إلهي سبحانه وتعالى وقضوعي marka kadib qofkaas waxa laga yaabaa inuu ku saamoobo labadiisa waalid ama muallimiintiisa ama awooyaashiisa kadibna oo bilaabo cibaadadii naarta ama caabudidii asnaamta halkaas ayuuna uga leexanayaa wadadii saxda ahayd sida darteed marka qof aan muslim ahayn oo galayo diinta islaamka arinta ugu wanaagsan ee la dhahaa waa uu soo noqday marka hore muslimnimo lagu dhalay kadibna waa uu ka leexday diintii oo meel khada ay qalad u aaday kadibna mar kale ay u soo laabtay iimaankii asalka ahaa arinkaasina waa islaamka idan kelimada saxda waa
ulaabashada islaamka. haddaan su-aasha u soo laabto, haddaad soo qabato 3 cunug, mid wuxuu ka dhashay qoys kirishtaan ah, mid waa yahuudi, midna waa hinduu, oo aad ilmahaasi aad si dhammaystiran uga ilaaliso saamaynta khaarijiga ah marka ay weynaadaan, haddaad isku daydo inaad ogaato nooca noloshooda, ma ahaan doono waxaan islaam ahayn. keliya marka uu ku yimaado saamayn dibadda ah ama khaarijiga ah, waxay bilaabayaan inxiraaf iyo inay ka noqdaan wadada saxda ah, waxayna bilaabayaan inay caabudaan sheeye qalad ah iyo inay qaataan afkaar qalad ah. arrintaasina waa cilmi ahaan ay u sugan tahay. arrintaa waxaa dheer walaashay, marka su-aashaada labaad aan u soo noqdo, haddii uu jiro qof u nasab sheeganaya islaamka ee aaminsan in masiix uu sameeyey mucjisaad, aniga waan ku waafaqsanahay masiix ciise calayhi salaam inuu mucjisooyin sameeyey, laakiinse walaashay mucjisaadku ma ahan imtixaan. haddaad rumaysan tahay masiix ciise calayhi salaam oo aad akhriso baybalka, masiix ciise wuxuu ku leeyahay baybalka Mataa chapterka 24 cadadka 24. maxaa yeelay waxaa soo muuqan doona kuwa beenaalayaala oo nebinimo sheeganaya, waxayna la imaan doonaan cajaa'ib iyo waxyaabo mucjisooyin u eg. dadka kuwa ugu wanaagsanna way dhakri doonaan hadday suurtagal tahay. idan masiix ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay mucjisooyinku imtixaan ma aha, maxaa yeelay waxaa soo muuqan doona dad badan oo beenaalayaala oo nebinimo sheeganaya, lana imaan doona cajaa'ib iyo wax mucjisooyin u eg. dadka kuwa ugu wanaagsanna way dhakri doonaan hadday suurtagal tahay. taa macnaheedu waxaa weeye masiix ciise calayhi salaam wuxuu leeyahay mucjisooyinku ma ahan halbeega. mucjisooyinku qofka kama dhigayaan ilaah. mucjisooyinku qofka kama dhigayaan qof qaariqul caado ah oo caadada ka baxsan. maxaa yeelay dhammaan mucjisooyinka ay rusushu sameeyeen waxaa lagu sameeyey waasidada Allah, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa rasushu ku ayiday dhammaan mucjisooyinka. dhammaan mucjisooyinkii uu sameeyey nebi muuse, badda kala jeexideeda markii uu u shatuuray isku bedeshay abeeso, dhammaan waxaasi waxay ku imaadeen amarka Allah subxaanahu wa tacaala. dhammaan mucjisooyinka uu sameeyey ciise calayhi salaam waxay ku imaadeen amarka alle. waa isku mid rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala dilaacidii dayaxa waxay ku dhacday amarka alle subxaanahu wa tacaala. waxaan ku leeyahay islaamku waa diinta keliya ee ka dhigaysa in la rumeeyo masiix ciise calayhi salaam qayb ka mid ah iimaanka. muslimku muslim noqon maayo hadduusan rumaynin masiix ciise calayhi salaam. annagu waxaan rumaysannahay inuu ahaa rususha alla soo diray kan ugu badan dhanka awoodda. waxaan rumaysannahay inuu ahaa masiix. waxaan rumaysannahay in loo dhalay si icjaasi ah iyadoo ayna soo gelaynin tadaqul dukuuri ama lab ah. arrintaasina waa waxa aysan rumaysnayn in badan oo ka mid ah masiixiyiinta cusub. annagu waxaan rumaysannahay inuu dadka dhintay ilaahay idinkiisa ku soo noolayn jiray. waxaan rumaysannahay inuu caafin jiray dadka ku dhashay indhoolanimada asalka ah iyo baraska ilaahay idinkiisa ku caafin jiray. muslimiinta iyo masiixiyiintu hal meel ayay wada socdaan. laakiinse qof inuu isweydiiyaa laga yaabaa maxay tahay wadada kala geynaysa. wadada kala geynaysa waa badanaa masiixiyiintu waxay rumaysan yihiin masiix ciise calayhi salaam inuu yahay alle. waxay rumaysan yihiin masiix ciise calayhi salaam inuu rabbinimo sheegtay. xaqiiqatan haddaad akhriso injiilka lama helayo cibaaro keliya oo cad oo sheegaysa inuu masiix ku leeyahay in masiix ciise calayhi salaam nafsad ahaantiisa uu leeyahay anigu waxaan ahay rabbi ee caabuda. hadday kuu suurtagelayso walaashay inaad ii tilmaamto hal cibaaro oo keliya oo macnaheedu cad yahay oo wax dabool ah aan saarnayn nusqo kasta oo baybal ah oo masiix ciise calayhi salaam ku leeyahay waxaan ahay ilaahay ee caabuda, anigu waxaan diyaar u ahay inaan kirishtaanatiga galo maanta. xaqiiqatan haddaad akhriso injiil ama baybalka, masiix ciise calayhi salaam wuxuu ku leeyahay injiil Yuuxana chapterka 14 cadadka 28. aabahayga aniga waa iga weyn yahay. injiil Yuuxana chapterka 10 cadadka 29. aabahay dhammaan dadka waa ka weyn yahay. injiil Mata chapterka 12 cadadka 28. anigu waxaan shayaadiinta ku bixinayaa ruuxda alle. injiil Luuqa chapterka 11 cadadka 20. anigu waxaan ku bixinayaa shayaadiinta farta Allah. injiil Yuuxana chapterka 5 cadadka 30. anigu ma awoodo inaan nafsad ahaanteyda wax sameeyo. anigu waan xukminayaa sidii aan ku maqlay, xukunkayguna waa caadil. maxaa yeelay uma degdegayo mashii'adeeda iyo doonisteeda ee waxaan u degdegayaa mashii'ada Allah. shakhsi kasta oo dhahay anigu uma degdegayo mashii'adeeda iyo doonisteeda, balse waxaan wax ku sameynayaa mashii'ada Alle. asagu waa muslim. masiix ciise calayhi salaam waa muslim. weligiina rabbinimo ma sheegan, mana dhihin inuu yahay Allah. wuxuuna arrintaa ku cadeynayaa injiil Yuuxana chapterka
14 cadadka 24 hadalka aad maqlaysaan ma aha hadalkayga balse waa hadalka Allah aniga ee soo diray waxa lagu sheegay injiil Yohana chapterka 17 cadadka 3 noloshaani waa joogto si aad u garataan inuu jiro hal ilaah oo kaliya waana Allah soo diray Masiix Ciisa arintaas waxa lagu sheegay sacad Masiix Ciisa inuu rasuul ahaa waxa lagu sheegay injiil Mata chapterka 19 cadadka 16 ilaa 18 in u soo dhawaada Masiix Ciisa alayhi salaam oo weydiiyay macallinkan saalix ahow maxay tahay ashyaada wanaagsan taas oo waajib tahay inaan sameeyo si aan u helo nolol abadi ah wuxuu ku yiri Masiix Ciisa alayhi salaam maxaad igu yeereysaan saalix wuxuu yiri saalix ma dhihin ilaah ayadoo oo jiro hal saalix oo kaliya waana abka ku jira jannada hadaad doonayso nolosha abadiga wasiyooyinka iyo dardaaranada xifti ma dhihin Masiix Ciisa alayhi salaam hadii uu doonayo inuu jannada galo waxa kugu waajib inaad rumayso inaan anigu ilaah ahay mana ku dhihin waa inuu rumeeyo inuu saliibka ku dul dhintay dambiyadooda dartood laakiin wuxuu yiri waxa weeye hadaad doonayso nolol abadi ah oo rabto janno inaad gasho wasiyooyinka xifdi arintaas waxay ku cadahay sifr a'maal ar-rusul chapterka 2 cadadka 22 ragga reer bani Israa'iilow arintan dhageysta Yasuucu Naasiri waa rajul ilaahay adinka dhaxdin ka waafajiyay lana yimid cajaa'ib iyo mucjisaad ilaahay gacantiisa ku sameeyay adinkuna waad aragteen maxaad leedahay Yasuucu Naasiri waa rajul amanin ilaahay dhaxdiinana uu ka waafajiyay cajaa'ib iyo mucjisaad iyo calaamad oo ilaahay gacantiisa ku sameeyay adinkuna aad daawateen oo aad aragteen su'aashaada gaar ahaan mucjisaadka muxuu ka leeyahay Bible-ku sifr a'maal ar-rusul chapterka 2 cadadka 22 rajul ilaahay idinka waafajiyay dhaxdiina cajaa'ib iyo mucjisaad iyo calaamad ilaahay gacantiisa ku sameeyay adinkuna aad aragteen idan fadliga oo dhan ilaahay ayuu u noqonayaa Masiix Ciisa wuxuu ahaa nin dhammaan mucjisooyinka uu la yimid waxay ka ahaadeen amarka Allah subhanahu wa ta'ala dhammaan mucjisooyinka ay rasuushu la yimaadeen amarka Allah ay ku timid waxayna ula imaadeen si ay uga marqaati kacaan inuu jiro hal ilaah oo kaliya Masiix Ciisa wuxuu ku leeyahay injiil Yohana chapterka 16 cadadka 12 ilaa 14 waxa agteyda ah waxyaabo badan si aan kugu sheego laakiin ma awoodaan hadda inaad u dul qaadataan maxaa yeelay asagu waa ruuxdii xaqa markuu idin yimaado wuxuu idinku hanuuni doonaa xaqiiqada kaamilka ah ee dhameystiran mana ka hadlayna nafsadiisa balse wuxuu ka hadlayay wixii uu maqlay dib ayuuna sharfi doonaa hadda nabinimadan uu sheegayo ma aha nabinimo kale ee waa nabinimada rasuulkii rususha ugu dambeeyay waa Muhammad alayhi salaatu wassalaam idan haddaad tahay kirishtaan dhab ah oo rumaysan Masiix Ciisa alayhi salaam wuxuu Masiix Ciisa alayhi salaam leeyahay agteeda waxa ah waxyaabo badan oo si aan idinkugu sheego laakiin ma awoodaan hadda inaad u dul qaadataan maxaa yeelay asagu waa ruuxda xaqa ah markuu idin yimaado wuxuu idinku hanuuni doonaa xaqiiqada kaamilka ah nafsad ahaantiisana kama hadlin wuxuu ka hadlayay wixii uu maqlay wuuna sharfi doonaa nabinimadan ma aha nabinimo kale ee waa nabinimada rasuulkii rususha ugu dambeeyay Muhammad alayhi salaatu wassalaam adigu haddaad tahay kirishtaan dhab ah waxa kugu waajib inaad rumayso rasuulkii rususha ugu dambeeyay Muhammad alayhi salaam waxaan rajaynayaa su'aashaada inaan ka jawaabay walaashay 20 daqiiqo kadib gabadhii waa ay soo laabatay si ay waxyaabaha qaar u cadeyso assalaamu calaykum waxaan doonayaa oo kaliya inaan ku dhaho Dr. Zakir aniga waxaan u soo noqday xaqiiqatan islaamka markii horena waxaan ku weydiinayay su'aalo oo kaliya taas oo ku saabsan ku dhaganaashadayda qawaacidda diinta ee ixtiraamida qoyskayga iyo asxaabtayda waxaan doonayaa inaan dhaho oo kaliya and I just wanted to say subhanallah and la ilaha illallah That's why I said you have to say what you have to say. Welcome to Religion of Peace, sister. kusoo dhawaw diintii nabadda walaasheen ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu kugu abaalmariyo oo jannadiisa ku geliyo waxaana ilaahay ka baryayaa subxaanahu wa ta'aala inuu Allah subhanahu wa ta'ala guide you. haddii aad doonayso in wax lagu cadeeyo annagu aad ayaan ugu faraxsanahay arinta waxaana jira maraakiis dacawi ah iyo munadamaad iyo hay'ado ee gabdhaha walaalaha ku leeyeen halkan Dubai waana ku suurtagal inaad la xiriirto haddii aad haydo wax istifsaaraad iyo tala soo jeedina haddana haddii aad wax su'aalo qabto si aad u qancido afraadda qoyskaaga soo dhawo walaasheen annagoo aad ugu faraxsan